wixii tolkaya ee hawiya ah iyo wixii abtiyaalada ah ee reer Somaliland ah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جودها برشة الصوماليات أربع سود وادني وما توحنا السنة هاي ما تحول السورة من مايو تام تغنى واتم حواش والله استقش قيل يا مقبول سيد حواش قال صوتهم يا مانتا يا أبو تد قريس أنا كراي قرية وما يقرأتن meel aan laga marin baa jira wiilkii alabtiga uu ahaa ayaa laga maray magaraysta libaandhe marig ayaa xaqiisa laga maray duqad ya aday maslaxa hati kan wax xanaaqaya soo dhawaada muuqaalka like saar dhinacna maanta uma jejeersanayo xaqiiqda ayaa ka hadlaya alcadaala like-ta xaqiina weeyaan iga diijiya hataa aad cusubtana subscribe isaar kambalelka iyo meel kasta furo oo isballaq baan kuliniyo isbarax ya hada wataq horta mid baan idin sheegayaa ilmaada rayaal waxyaalaha qaar baa gunnimo ah oo ceeb ah oo maganaysa aan fiicnayn lagu dhaqaaqo tusaale ahaan qofka farmaajo uu taageeri karaa waa xor khasab maaha in la yidhahda taageeri sidoo kale xasan sheekh maxamuud uu taageeri karaa khasab maaha in la yidhahdo ma taageeri kartid may garatay laakiinse waxaa ceeb ah qof walba in aragtidiisa lagu cusuriyadeeyo ama lagu soo weeraro maalintii shalayta ahayd fanaanka libaandhe marig waxa uu ka qayb galay xaflad si heer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday beerta xorriyadda magaalada muqdisho waxaanu goobtaa ka qaaday heese jacayl ah halkaas oo uu dadweynaha dhex gelayay oo weliba mararka qaar farxadda uu qabiilada qaar ku dhawaaqayay waa reerka uu ka soo jeedo iyo reeraha uu ka dhashaybe xafladaasina waxay ahayd xaflad ay isugu yimaadeen taageerayaasha xasan sheekh maxamuud ee dhowaan guusha weyn ka gaadhay dhanka siyaasadda Soomaaliya iyagoo xafladaas ay isugu yimaadeen beerta nabadda ee magaalada muqdisho halkaas oo tamaashaadkii dabaaldega iyo nikada yaqaanay kii dhaantada yaqaanay kii jaandeeta yaqaanay nin waliba wuxuu ka qayb galay may garateen haddaba fanaankan magaciisa la yidhaahdo libaandhe marig ayaa ka qayb galay isaguna wuxuu ahaa taageerayaasha xasan sheekh maxamuud isagoo heeso fara badan meeshaa ka qaaday oo weliba farxad la qaadanayay maxaa dhacay markaa kadib maxaa ku dhacay fanaankii fanaankan libaandhe marig markii xafladdu ay dhammaatay ee la kala dareeray ee nin waliba aqalkiisii u qabtay waxa uu gurigiisii ayuu tegay muuqaalo uu leeyahay oo xafladaasa oo uu heesa ka qaaday dabaaldegaasa ayaa wuxuu soo qaaday waxaanu geliyay aaladda TikTok-ta aaladiisa TikTok-ta oo ay ku xidhnaayeen dad ku dhow 500,000 ama baan garo karo 200 oo kun oo qof baa ku xidhnaa ayaa markii taageerayaashii farmaajo ay arkeen ayaa wada ka saareen iyadoo report hubka culus ee nuclear-ka report loo yaqaano magaranaysa lala dhacay haddaba libaandhe marig oo aada uga cadhooday arrintaas lagula kacay ayaa muuqaal aada u murugo badan buuxay soo duubay ila daawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحان كشيغي يا عاوة
in tiktokkaygii layga jabsaday oo laga saaray hawada oo tiktokkaygii hees xasan sheekh darteed xasan sheekh heesaan u qaaday oo caawa lagu qabanayay maanta meesha la yidhaahdo beerta nabadda oo soo dhoweynta ahayd haddaa ka soo baxay tiktokkaygii baa la jabsaday hawada laga saaray wakaa idhikaarkii aan ku galaynay xasan sheekh idhikaarkii aan ku galaayay tiktokkaygii ma jiro dhammaan waxaa ka codsanayaa wixii tolkaya hawiye ah iyo wixii abtiyaalada ah reer somalilan ah in falowgeygii laisoo cesho falowgeygii laisoo cesho ayaan iga codsanayaa fadlan iyo wixii kale islaama qalbigoogu naxariis leeyahay aniga xasan sheekh waa madaxweyne qaran waa madaxweyne saa darteed aan ku taageerayay laakiin saa darteed in falowgeyga laga saaro falowgeyga laga saaro ma aha aad baan uga xumahay waxaa ku dhacay fanaankan liibaan dheemaarig oo ka mid a fanaaniinta dhalinyarada ah ee iminka fadhigoodu yahay magaalada muqdisho isagoo hore ugu dhashay ku barbaaray magaalada hargeysa iminkana dhowaanahan dambe ku sugnaa magaalada muqdisho fanaankan oo ka mid a fanaaniinta iminka aadka looga xiiseeya magaalada muqdisho arrintaa lagula kacay anigu waxaan u arkaa arrin aad u xun baan looga arkaa ninka farmaajo taageera in loo diido taageeradiisa taa waa khalad ka xasan taageerana in taageeradiisa loo diido waa khalad xitaa shalayto isla meeshaas isagu ka qayb galay waxaa tagtay gabadha la yidhaahda mrs wall waxaa jira dadyow weerar ku qaaday oo macaltimaha jiiday oo la dagaalamo yidhi sideebad farmaajo u taageertaa oo ku dhegay arrintaasi waa arrin aada u xun waxaan leeyahay wardaareod iyo hawiye hubka dhiga mid kalena waa nii sheegayaaye fanaankan waxaa codsanaya guud ahaan bulshada soomaaliyeed marka koowaali in aaladda tiktokta lasoo forogareeyo aaladda tiktokta cusub oo imika samaystan waxaan kasoo qaadi doonaa screenshoot waxaan soo dhigi doonaa communityga youtube-ka waa ku yaacaysaa insha allah ma odhanayo hawiye iyo saa keliya ma odhanayo hawiye dir keliya laakiinse macal daarood macal dig iyo midhifle macal gabooye guud ahaan bulshada soomaaliyeed waa fanaankiini ku yaaca may garatay midna waa nii sheegayaa daarood iyo hawiye waa laba qof oo isdhalay inay iyo abtigiiyo baatiin wuxuu waa siyaasad farmaajo hadduu guulaysan lahaa soo lalama shaqeeyeen ya xasanna ha lala shaqeeyaan ugu odhanaya ha lala shaqeeyo dadku way dad isdhalay ma garanaysa anigoo ah oday soomaaliyeed ma garanaysaa waxaa shaarmusa ay ugu bixeen waa nabadda aan ka shaqaynayo isku soo wada duuduub anigu falow baan soo yidhi adiguna falow soo dheh insha allah mar iyo lababa halkan waa soo dhigi doonaa aaladiisa tiktokta adigana aragtidaada xagga hoose gu dhaaf waxaana leeyahay liibaan dheeraad war abtu iska raalle xaal qaado wasalaamu calaykum muqaalka alla istaan war salaam ya niyo maca salaama